arrimaha gudahayo wasiirkii xilka adag noo hayo caqli iyo aqoon wada socdiyo aragti dheeraada af wanaagsan iyo eedlaan aaminima buuxda dadkaad ugu adeegtaa wax qabad kugu ammaanaya odawa abalkaad gasha lama ilaawanaha mas-uuliyadada qaadi kara ixnimad geline dadku adiga ku siman waqa laguma eedayne dadku adiga ku siman waqa laguma eedayne odawa abalkaad gasha lama ilaawana mas-uuliyadada qaadi kara ixnimad geline dadku adiga ku siman waqa laguma eedayne dadku adiga ku siman waqa laguma eedayne soomaaliyadiga iyo marqura ku wada istaageen abshir baanu wada leenahay idamaliyo guushaada soo noqo allaan barinayo ducadu aamiin soomaaliyadiga iyo marqura ku wada istaageen abshir baanu wada leenahay idamaliyo guushaada soo noqo allaan barinayo ducadu aamiin istijaaba iyo khayraad darasku noo sheege ifafaalada muuqata waa irmanagye soo noqo allaan barinaye ducadu aamiin soo noqo allaan barinaye ducadu aamiin waxna noo soo qabtay ayaa tihiin waa idinkaga mahad celinaynaa waa idinkaga sii mahad celin doonaa waana idin sugaynaa 14 boqolka walaalaheenna idinkoo ah waxna noo qabtay waxna na taray noloshii koobaad waxay ka bilaabataa biyaha meeshaana waxay ahayd meel baadiya oon biyo lahayn oo biyaha ay ka fog yihiin maadaama aad markii noloshii koobaad noo bilowdeen oo biyihii noo keenteen waxaa ka dhiman inaad noo sii raacisaan nolosha deegaanka sii aragtaan deegaanka wuxuu u baahan yahay sii qaymaysaan 14 boqolka idinku soo dhaweynaynaa walaalaheenna assalaamu calaykum waxaa halkan ku dhaqan dadweyne aad u fara badan waa la soo maray waxqabadka ceelkan ugu horreeyey mashruucii ugu horreeye weeye waa ka mahad celinaynaa dad iyo dunyaba waxbuu taray haddana haddii ilaahay noo calfo waa la sii cabi doonaa laakiin waxyaabaha naga dhiman oo hadda ka horna aan dhowr goor ka hadalnay welibana aanan waxba ka helin meeshaan dhowr daris ayaa nooga dhow oo isla galmudug ah waxaana dadkuna shaqaaqo fara badan ayuu leeyahay lagama helin meel waxaan u baahannahay boolis degmada ku xiran oo laga qoro oo hal unugoo 11 ah waa u baahannahay waxaan kaloo u baahannahay booliskaas waxay ka shaqaynayaan dadka wixii ay ku filan yihiin ayaga qabanaya wixii ay ku filnaan waayaanna waa u qaylo geysanayaan xagga degmada waxaan fadhanahay saldhig boolis in meeshaan laga dhiso salaam bacdi waxaan ka mahad celinaynaa ceelka kan waxaa leedahay afar waaqo waa ceel aad iyo aad loogu noolaaday ilaahay mahad wax ka gaadho ciddii keentay iyo ciddii soo abaabashay iyo ciddii ka shaqayday iyo ciddii wax ka qabataba waxaan u qabnay baahi badan iyo oon badan iyo dhibaato badan deegaan baaxad weyn ayaa dhulkaan ku fadhiyaa ceelkaas waa ka mahad celinaynaa madaxdeena haddee waxa leeyahay horseed hagar kuma maqna annagu waxba fari mayno baahida dalka hadday waxbarasho tahay iyo hadday caafimaad tahay
iyo hadday dadaalka biyaha wax ka dhiman ay tahaba annagu waxba fari mayno ayagaa waxna fara waxaan faraynaa ma jiraan waxaan balyaan leenahay waa u hambalyaynaynaa ilaahayna khayr baan uga rajaynaynaa waa soo dhawaynaynaa waa ka mahad celinaynaa tiga iyo xildhibaanka iyo guddoomiyaha degmada iyo waftiga uu hogaaminayaanoo noo yimid waxaan uga mahad celinaynaa waxqabadka qiimaha leh oo ay wax noo qabteen oo matoorka iyo biyaha iyo farsamada ay noo qabteen waa ka mahad celinaynaa wixii maaragta kale oo nala kugu dari karo hadday soolar tahay iyo hadday biyogelin tahay iyo hadday waxbarasho iyo farsamo dalku uga baahan yahay ay tahana waa waxay u jeedaan aynu noogu dagaal maqan yihiin haddii ilaahay idmo intaas u soo dhaweyn ameenka dhex baan ku furisay ameenka dambana dhex baan ku soo furisay salaada dambaan keeni aqalkayga waxaan maqlay bacad daba galo ceelka la yiraahdo baraaga badan buu lahaa nin beero badan buu lahaa da'dayda nin yaa leh bacad daba galaa biyo laga helo camaaru dhaanin markaasuu booyay maxaad la booyaysaa baa la yidhi niyo oday baa taa dhaankan 3 meel la dhexi jiray oo biyaha ku keenisnaa qaar dhex ku soo cabbi jiray gurigiiba ilaa yaaleen mana aanan ogeyn saasaa ku mana aanan ogeyn marka hadda biyihii halkaan yaale aan halkaa labada hameen u dhaxay awood aan uga soo saarto ma lahayn raggii nooga soo saaray ilaahay mahad ka gaadhay waa walaal naga weyn waana soo koriya waana daadheeyay walaalka ka weyn gacanta inta ku qabtay kuftinta ka ilaaliya kuftintii iyo dhibkii iyo oonkii iyo ciyaalka wax ku hees jirna awrta markii la heeriyeynahay waxaan oran jirnay ويال سرني يدلان سياحن ويا لقوة يان أورنج يان أورنج مركي هيدا لسيارة حق الله يسوي رأي ودانكو بيسي مركي هذا وحي أورن لك بحي ورعاق الناس وغير هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أول محمد لنا يا وسير كهرة الماء جداد الفدرالية الصومالية أنا حلبان قرن عبد الرحمن ذوال حلبان هذا قل مذوب قداميها قل صور بدل لبا مسؤولين تكلون الله سعوده لمان بعد صحافة إذا ما دخل كسيدنا الله سعودي أضيالك يدك الديجان كحنجلة بانقول نمت وحنا لنا هاي أدي أدوم هسنتين دتك dhibaatada waa soo jiri jirtay maalin bana meel bay joogtaa maanta xildhibaanka waxaan uga mahad celinaynaa ceelkan oo hadda maanta aan taaganahay oo xinjilab deegaan cadaada ka tirsan ah waa ceelkii afraad oo inta aan ogahay oo gudoomiyaha degmada cadaada ka ahaa uu deegaankan horta keeno ceelkan ayaa u dambeeyay hadda maanta aan taaganahay xinjilab waxaa ka mid ahaa kan Deys waxaa ka mid ahaa kan Balli Guuleed waxaa ka mid ahaa ceelka baxda laga muday afartaas ceel xildhibaanka ayaa afartaba sabab u ahaa keenidooda ayaa keenay annagu meeshu ka keenay ma garanayno cid hadda daba joogto annaga wax soo dhiibnaa ma ana arag afartaba asaga mid walba keenay asaga soo maruujiyay asaga noo raadshay annagu marka waxaan leenahay cid wax soo dhiibtay hadii qof wax ku kalmay uu jiro asaga yaqaan annagu asaga naqaana waxaan ku leenahay mudana xildhibaan mudana wasiir aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa dadkan waa u dhibaatoonayeen way u jeedaa ariga hadda asaga soo arigaas waxa loo aroori jiray meel kale geeli waa kan wacabaya ummadda sidaan bay cabaysaa meeshaani waxay ahayd meel deegaamo oo dhowr qabiil iska saaran yihiin marka colaada ka dhacaan dadka dhibaato ay ku qaban jireen biyaha iyo deegaanka dhib ay ku qaban jireen laakiin maanta deegaankoodii lagu keenay waxaan leenahay marka ilaahay ku barakeeyo aqoontaada iyo cilmigaaga iyo mas'uuliyaddaada hayda inta wallahi kula galab galo waana kaaga mahad celinaynaa deegaankuna sidii u sii baahan yahay deegaamo badan haddii maanta xijilab hesho shalay gidhays hesho maalinta koorida meel kala heshay dad kala u baahan deegaamo kale dalka ka mid ah sidii u biilayeen sida dadkani maanta ay u baahan yihiin dadka deegaankana waxa laga rabaa ceelka hadii la idin keenay wasaaradda lacag ku bixinayso dambe ma jirto adinka la in ka rabo ceelka inaad ilaashatiin adinka la in ka rabo hadii ceelku shidaalka inaad kala baxdeen adinka la in ka rabo ceelka haduu in ka jabo oo batoolka in ka halaabo inaad samaysatiin cidda ma wax ku kabaysaa ma jirto calool gacmalo looma baahna waxa la rabaa inaad ceelkiina ilaashatiin midda kale deegaanka markiisa ka hadasheen maanta adduunka waa laga gudbay wax la wada halay qabto meel binaysta waxa tilaadeen meeshan imsaajan ka rabnaa meeshan iskuulan ka rabnaa asaasa sameeyeen hal arko dadku waa la taakuleen deegaamada si wax looga dhisay ma boogidin inaan wax yar ka hadlo wasiirka ahna xildhibaanka muddo dheer naga maqnaa deegaamada intuu ka maqnaa isbedelada ka dhacay isbedeladaas ka mid ka dhacay waxa ka mid ah wuxuu ogaa galmudug iyadoo mid ah oo cadaada degan oo
madaxweyne xaaf markaas ka yahay mudana wasiir mudana xildhibaan galmudug waa kala tagnay galmudugta aad taqaanay galmudug waa kala tagnay galmudug cusub aan dhisannay annaga madaxweyne baastaag madaxweyne noo ah galmudugtii hore waana dulmiday haddaad xaqeena ka keeni karto welcome laakiin annagu haddeer madaxweyne baastaag madaxweyne noo ah soo dhawow waa mahadsan tahay bismillahi raxmaani raxiim gudoomiyaha degmada cadaado iyo gudoomiyaha degmada godinlabe iyo xildhibaanada iyo odayaasha iyo ahalka halkan isugu yimid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ilaahay mahadiis inaan maanta joogno in meeshaan mar aan imid 2 sano ka hor aan idinku imid halkaan baahidiinnu waxay ahayd koowaad baahiyo badan baad qabteen baahidiinnu koowaad biyay ahayd ilaahayna wuxuu yidhi wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin wax walboo nool biyahan ka bilowna biyuhu muhiimaddaasay bani aadamku u leeyihiin bani aadamku baadka muddo u qadi karaa laakiin biyaha intuu u qadi karo aad iyo aad bay u yar tahay ugaaskaana ka warramay intii meeshaan biyo loo dooni jiray iyo dhulkii la soo mari jiray marka horta waa ilaahay mahadiis saakii inay idiin bilaaban tahay oo ceelkii iyo biyihii iyo weliba biyihii oo dhadhankooduna fiican yihiin oo dad iyo xoolaba cabi karaan aad haysataan waa ilaahay mahadiis waxaan aad iyo aad u jeclaaday sida ugaasku iyo odayaasha ka dambeeyaba ay baahida u soo koobeen niman ragoo hore mudugu oo baahidooda yaqaan oo waxooda u tirsan yihiin ay ahaayeen nimankii meeshaan ka hadlay gudoomiye waana yeelaynaa haddii ilaa yidhaahdo oodu siday u kala korraysaa loo kala qaadaa la yidhi annagu horta qayladhaanaan ku keennaa gudoomiyuhu sidoo sheegay dhulkaan ceelashaas aan ka soo hirgelin ninkii waxaa la yidhi jeebkiisa wax kaa soorana ragdhe ninka reer kale kaa soorana raggaruuridho annagu reer kale ka sooraan ka shaqaynaynay hadda xildhibaanku waxa u qaato hadduu asaga ku noolaado nasiib la jooga laakiin hadda warni ordadaan dhul meeshaa soo baaxa dhulka soomaaliyeed oo dhan annagu qayladhaantaas waaba u wadnaa laakiin hadda deegaankiina laga soo doortay oo hadda annaga aan dalka u matalno gudoomiyuhu siduu sheegay ceelashaas saddexda yaa asalka ahay ceelka afaraad solaraan kala qayb qaadanay moogiye ma ahayn qodaalkiisa annaga ma lahayn gelintiisa kuwa kalena dadaalkeeda waa ku jirnaa gudoomiyaha ruuxiisaanba ka wada hadalnay deegaanka xildhibaanadii kale oo reera deegaankaana ragna maktabaday sameeyeen ragna soolaray keeneen ragna dadaalay hadda sii wadaan oo ay isbitaalka ku taageerayeen nin aan meeshaan hadda raggii aad dirteen alla ilaahay la leeyahay ninkaasu waa caato laguma arkay raggu waa wada dadaalayeen waana idin soo salaamayeen oo anaa hadda wakiilka ah dalka iyo dibaddiisa waa kala jiraan inaan dee wada nimaadna haddii ilaa yidhaha waa dhacaysa arrimaha aad ka hadasheen oo qodobaysan oo MCH-ku isbitaal maahan MCH-ku iyo iskool ay u horreeyaan iskoolka sida gudoomiyuhu sheegay dhulkana calaamadeeya dhagaxana dhiga inta kalena waa ku soo daraynaa annaguna nin alla ishinjaab markaan arag wax waa la hinjinaynaa weliba qayladhaantaas waa diray ilaa kor iyo ragaad adeeradiina iyo kulli waa la hadlay waxaan war nimankii iskool ha loo oodo iskoolkuna soomaalidu xoogaa yaroo annaga ruuxeen guri weyn oo sara in meeshaas laga dhisa qasab ma iskoolku waa 4 qoloo jiingada haddii la dhiso oo musqulihiina loo dhiso fasalkana lagu bilaabo ilaa waxa laga helayo sar laga dhigayo asaga ruuxiisa waxaa muhiima in farta iyo lagu barto macallinkina waa idiin soo diraynaa annaga ruuxeen inaan macallinka idin kala qayb qaado waxaa dhaloona la bilaabo haddii ilmaha inta hore yaryarka waqtiga hadda idiin hayo aadnaan shaqada badan ku qabsan in lagu bilaabo farta iyo koowaad iyo labaad iyo saddexaad intay cadaada ka gaari karaan oo aad uga maarantaan waa ka shaqaynaynaa haddii la yidhaahdo gudoomiyuhu sida uu sheegay anigu deegaankan baan xildhibaan u ahay wixii deegaanku rabaan rabaa oday reer galmudugana waa waxyaabahaan u imid in wax jiraan oo la isdhibsaday oo galmudug isdhibsatay asalka siduu sheegay ama wixii deegaanka ka maqan baan keenaynaa gudoomiye ama waxaad nagu biraysaa yeelayna marka warkaaga ka weydid laakiin haddee nimankii reer tolkeena ahayna waa u baaqin oo waxaan idhi warreey tolkeenu waa laydin rabaa waana lays rabaa dadka yaa laga tegay haddii ninkii iska kaafil qaal layskuma rakibi kareen laakiin walaalahan waaye dadkana kalama maarmaan waxna inay nooga maqan yihiin daraan waa qabna ayaguna maqnaasheen kulleyba wax ku luusgareeyeen aan wada joognaan qabnaa gudoomiyahana warkiisa iyo fariintiisa waa fahmay waa fariintiinana waa qaadnay waana geenaynaa dadkan iyo deegaankan Soomaaliya oo dhan la rabaa in la isku hayo ilmaadeertii iyo kuwa daris wadaagga iyo ood wadaagta kala fogaanshadeeduna macno badan ma keenayo colaadaha ka jira deegaankan oo saakay hadda la leeyahay meel meeshaan ka xandhaale iyo saaxa iyo dhib ka socda
إلهي قبوجيو ومالين جماعة الله قبوجيو ودتك ولا لها أنا شلنا وأبغى ما أنتنا وأودرينا وإحنا أنا تبرتنا هدير تايلا فين أنا كنت تجنر ديارنا إنه هاي دتك أصل كلا بدباديو ما راح هذا فدرالك يمد الدولة الجبلات ود هالكان جوتي مالك اللي ترتبه أيضا محلنا على الغبة دتك على الغبة ولادو وقت الزمن كان أبارد اسمه هيدول الرئيسين هيدا ولاد فنانين هيدول أباريسين أنا كبسيط ترى وما سنتين وأنا دلالي قدومي هنا بلنكين وادي جستي أصلاً يود بكعاي أنا قاعد ديلا يرادو شغال على عصتين والليلة ساد نسود ويدين وكم سنتين